aqalka dowladda hoose xamar ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriso ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay wakiilka gaarka hay'adda WFP u qaabilsan Soomaaliya Mr Laurent Bukera iyagoo ka wada hadlay labada dhinac sidii loo dardargelin lahaa taageerada loo sameeyo dadka barakacayaasha iyo sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qaba waxaana kulankan goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan maamul gobolka banaadir kulanka oo saacado qaatay ayaa waxa aad loo falanqeeyay sida ugu haboon ee loo dardargelin karo taageerada loo sameeyo dadka baahiyaha gaarka qaba iyo sidoo kale sidii fursado shaqo loogu abuur lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee caasimadda ku nool maadaama ay yihiin tirada ugu badan ee ku nool magaalada waxa uu sidoo kale duqa magaalada muqdisho kala hadlay madaxda WFP sidii loo xoojin lahaa barnaamijyada kala duwan ee samafalka loogu sameeyo dadka barakacayaasha ah oo tiradooda qiyaastii ay kor u dhaaftay 500,000 shirka ayaa markuu uu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamul gobolka banaadir Saalax Xasan Cumar sidii loo dardargelin lahaa gargaarka bini'aadanimo ay fidiso hay'adda WFP ee loo fidiyo dadka iyagu barakacayaasha ee ku nool ee magaalada muqdisho iyo waliba dadka iyagu baahiyaha gaarka qaba sidoo kale waxyaabaha laga wada hadlay gudoomiyaha iyo wakiilka ay ka wada hadleen ayaa waxa kamid ahaa hubinta badqabka cunooyinka ee WFP soo gaarsiiso dadka iyagu baahiyaha gaarka qaba iyo dadka barakacayaasha intaba sidoo kale waxa gudoomiyaha uu kala hadlay WFP sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dadka dhalinyarada ah maadaama dhalinyarada ku nool dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ay yihiin tiro aad u fara badan wakiilka gaarka hay'adda WFP u qaabilsan Soomaaliya Mr Laurent Bukera waxa uu ka hadlay waxyaabaha isla meel dhigeen maamul gobolka banaadir I'm here at the Benadir Regional Administration. I've had an extremely waxaan joognaa xarunta maamulka gobolka banaadir halkan waxaan kula kulannay gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxyaabaha aanu ka wada hadlayno waxa kamid ah sidii xal loogu heli lahaa dadka ku dhibaataysan magaalada muqdisho ee danyarta ah sidii loo siin lahaa daryeel nololeed caafimaad iyo mid waxbarasho intuba sidoo kale waxyaabaha aanu xooga ku saarnay kulanka waxa kamid ah mustaqbalka dhow si fursado loogu abuuro guud ahaan dadka ku nool caasimadda Soomaaliya muqdisho si looga gudbo dhibaatooyinka dhinaca nolosha shaqo abuurna loogu sameeyo dhalinyarada ku dhaqan caasimadda as well as on employment in particular for the youth.